khalad ilaalis oo ajnabi iska ilaalis oo nin islaameed iska ilaalis oo hadhow ilmaha lagu inkirin oo sharafkeeda aysan ku dheelin oo aysan caadi inaysan la noqonin caadi inaysan kula noqonin qof ajnabi inaa la fariisato inaa habeenka la babaxdo inaa la socoto inaa la maaragta ka qabsato jirkiina inuu isgaargaaro wadhkur fil kitaabi maryama ilaahi subxaanahu wa tacaala leey wadhkur fil kitaabi maryama kitaabka ku sheeg fadli ee dumarka dheer tahay waa wanaageeda kitaabka ku sheeg magaceeda kitaabka ku sheeg maryama magaca almar'atu alwaxiida oo quraanka magaceeda si qayaxan loogu sheego waay inta kale waxbaa la raacinay ummi muusa ukhtu muusa imra'atu fir'aun imra'atu nuux imra'atu luut ala raacinay kuwaas imra'atu cimraan laakiin maryama waa gabadha kaliya magaceeda qayaxan quraanka lagu sheegay bifadliha nabigaana waxa lagu yiri wadhkur fil kitaabi maryam markay fogaatay idin tabadad min ahliha makanan sharqiya meel masaajidka baytul maqdis bariga ka xiga ayay aaday xoolaha way fogaatay waa marka nabi ciise lagu afuufi doono ruuxdiisa culimada maxay leeyihiin maxay u soo fogaatay fattakhadad min duunihim hijaban astur bay yeelatay astur bay ka dhigatay xoolaha meel ay